inaan wariye ahaa yes inaan magaca taakayna heenaasteyda u ahaa yes waa kuma ninka ugu hadalhaynta badan Soomaalida xilligan marka la joogo baraha bulshada haddii aan anigaba kaaga jawaabo waa Farxaasle Sufyaan kaasi oo inaaniistiisu tahay taakee waa maxay eedda loo soo jeedinayo ninkan rajeynaya inuu bedelo calanka Soomaaliya iyo astaanta qaranka uu ku tilmaamay inay tahay astaan shaydaan eedeyntiisa dilalka iyo soo bandhigidiisa afarta xaas ee dhawaantan haddii aadan wax badan kala socon sheekadan like saar muuqaalkan si muuqaalku uu saaxiibo badan u gaaro una sheer gari asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga shandile taakeeye qatiluhu 5 isku makaan maqtuluha wa qatiluha Sufyaan waxa uu labadii isbuuc ee la soo dhaafay qabsaday baraha iyo bulshada ku kala warqaaday ee social media qaybihiisa Facebook iyo YouTube kadib markii laba waqti oo isxigta uu soo bandhigay sawirrada afartiisa xaas ee u dhaxa si uu dadka u dareensiyo inuu Farxaas leeyahay durbaba hadalhayn badan ayuu ka dhaliyay sawirradiisa iyo waraysyadii uu bixiyana aad ayaa loogu boonbooniyay baraha bulshada waxay ku tusaysaa heesta calanku markaa sharaxadeed inay tahay hees lagu sheegayo kalinimo loo qirayo shaydaan ama calanka ama xidigta in la sheegayo in asaga la weydiisanayo kaalmo in la sheegayo in asaga loo ooyo waqti badan kama soo wareegan kadib markii maalmo yar ka hor isaga iyo afartiisa xaas ay waraysi siiyeen BBC-da laanteeda afka Soomaaliga halkaasi oo ay qoyskan hadallo ka jeediyeen isagu wuxuu dhalinyarada u tilmaamayay in ay raxmad tahay oo loo baahan yahay raggu inay Farxaaslayaal noqdaan kadib hadalhayntaasi waxaa soo baxay mid ka kulul oo u leexanaysa dhanka xun iyadoo Sufyaan la soo bandhigay eedeymo badan oo isaga loo soo jeedinayo iyo ninaastii loo garanogaa ee ahayd taakee sidoo kale waxaa la soo bandhigay inuu ka shaqayn jiray Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo eedda loo soo jeedinayay ay tahay inuu qaarijiyay ilaa iyo 5 saxafi oo kala shaqayn jiray qaybta warbaahinta afka Soomaaliyeed hordhigo xaqiiqdu waxa ay tahay xaqiiqda Sufyaan Sheekh Axmed waa sidaas inaan wariye ahaa yes inaan magaca taakayna heenaasteyda u ahaa yes inaan 1991 Radio Muqdisho joogay yes laakiin inaan anigu wax dilay oo hadda la leeyahay ninkan waa la arko dad baa la hayaa gacantiisa inuu ku dilaal hayaa waxa loo baahan yahay dadkaas dabcan in banaanka la keeno qofkii warkaan yiri ayaa laga rabaa xaqiiqda warkaan banaanka inuu keeno tan iyo eedeyntaasi waraysiyo dhowr ayuu bixiyay isagoo siyaabo kala duwan u sharaxay inaysan waxba ka jirin eedeynta loo soo jeedinayo iyadoo arintaasi micnaheedana uu ku sheegay inay tahay qorshe la doonayo in isaga lagu qaarajiyo waxaana uu farta ku fiiqay qayb ka mid ah warbaahinta iyo hay'adaha caalami ah yalkeeda Sufyaan oo ay ninaastii tahay taakee ayaa magaciisu noqday isbuucii la soo dhaafay midka loogu hadalhaynta badan yahay sawirradiisana loogu isticmaalka badan yahay waxa uu sheegaa inuu yahay aqoon-yahan ka soo baxay jaamacado caalami ah kana soo dhaxlay cilmi iyo aqoon aysan Soomaalidu lahayn isagoo si cad ugu adkeysanaya inuu si dhab u doonayo bedelida calanka Soomaaliya iyo astaanta qaranka taasi oo arko inay tahay shirka iyo in la caabudayo intii waxa mudnaan leh marka wax cusub ay yimaadaan in la isweydiyo waxaan maxay yihiin laakiin inaan lagu mashquulin maxaad idinku u aragteen anagu waxaan dad mutaalimiina waxaan soo baranay wax dabcan Soomaalidu aysan hore u baran markaan ku leeyahay ka sheekeynay aqoontayda waxay muujinaysaa macnaha deeply sida aan u aqaano waxaan waxay yihiin dhaqamada westernka christianka diimaha kala duwan waxa soo dhan waxaan fahamsanahay marka anigu waxaan fahamsanahay waxaan waxay yihiin macnaheedu u taagan yihiin waxaan ku cadeynaya maantay oo tusaale kugu filan in aan sharaxno kaliya heesta calanka ee Soomaaliya waxay ku tusaysaa heesta calanku markaa sharaxadeed inay tahay hees lagu sheegayo kalinimo loo qirayo shaydaan ama calanka ama xidigta in la sheegayo in asaga la weydiisanayo kaalmo in la sheegayo in asaga loo ooyo ilaa iyo hadda ma saadaalin karno wax kasta oo jira balse waxaynu ogaan doonaa sida ay arrintan ku dhamaato iyo halka ay saldhigato haddii aad arrintan wax badan kala socoto aragtidaada inoogu soo qor qaybta hoose ee commentiga ilaa iyo dhamaadka haddii aad nala joogtana waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad muuqaalkan like saarto si muuqaalku uu saaxiibo badan u gaaro una sheergari asxaabtaada kale ee Facebook waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga